Sunshine Media. Subscribe for more. maxaysan inoo jeclayn kuwa aan jecelnahay? Maxay tahay sababta marka ay naga tagaan kuwa aan jecelnahay aanu u dareeno sidii inay noloshuba inaga joogsatay oo kale, laabaheena ama qalbiyadeennuna ay u dareemaan ciriiri, aanu u dareenaa inuu burbur ka dhacay gudaheena? Maxay ugu hareereysmaysaa oo ay u camiraysaa qulubteena murugo, laabaheenana ay ugu abuurmaysaa xasuuso murugo leh oo ay inoogu adkaanaysaa inaan ilowno iyaga sidii ay iyaguba inoo iloobeen oo kale? Maxay tahay sababta mar kastoon qof isku xirno ay caqligeenna iyo dadnimadeena u dafiraan oo ay inoo ihaanaystaan? Maxay tahay sababta ay ugu ciyaaraan dareenkeena marka aan siino jacayl badan? Maxay tahay sababta kuwa aan jecelnahay aysan u qadarinin jacaylkeena? Maxay tahay sababta markii hore aan qiimo ballaaran ugu lahayn agtooda, markaan u furnay albaabada nolosheenna oo idinna ay ugu ciyaareen qalbiyadeennii daacadda ahaa oo jilicsanaa? Maxay inooga tagaan marka aan awood u siino inay nolosheenna ku darsadaan fikradahooda oo aynana ogaadeen in ayna saamaynayaan oo aan ku dhaqmayno hadalladooda? Haddaba aniga waxay ila tahay inaynu markii hore siinay furaha qalbiyadeena qof aanan xafidi karin oo aanan ahayn midkii loogu talagalay, kadibna uu inooga tagay si uu fursad inoogu siiyo si aan u raadsano qof isaga ka wanaagsan. Waxay kaloo ila tahay inay kuwaasi ahaayeen kuwa nolosheenna u soo galay si aan xasuusahoodii casharro uga baranno, kadibna aanu noqono kuwo khibrad ka leh nolosha. Waxay kaloo ila tahay inaan inagu ku qaldanayn inaan anagu qalbiyadeena ku xirno qofkaasi oo aan si dhab ah u ogeyn qiimaha aan leenahay. Haddaba adigu ku dadaal horumarinta naftaada, kuna kalsoonow rabbigaaga markasta. Waxaa dhab ah in uu maalin uun imaan doono qofkii kuu qalmayay, fahmayayna qiimaha aad leedahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.